waxaan qorshahaygu yahay ciidamadu horta waxa hadda la siiyo wax de ku filan ma aha in aan wax badan ka bedelo korna u qaado mushaharkooda noloshooda because ciidamadu waa laf dhabarka xaaladda hadda lagu jiro Soomaaliya oo dhan iyo maxaan ku yiraahdaa gaar ahaan Jubbaland in caruurtooda waxbarasho ay helaan lacag la'aan ah in ay caruurtooda iyo xaasaskooda helaan caafimaad lacag la'aan ah in ciidamadu ay helaan isbitaal u gaar ah oo ciidamada kaliya u leeyihiin oo runtii hadda ku dayacan isbitaalka caadiga ah ee dadka oo dhan iyo shacabka oo dhan ugu tago in ciidamada lagu daweeyo ama ay tagaan taas oo runtii wax maxaan ku yiraahdaa ku habboon ciidamada aan ahayn dhinaca xildhibaanada dawladdu marka ay parliamentarian tahay ama ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer dawlad goboleed xildhibaanadu waa laf dhabarka ama hoggaanka inta dambe oo dhan marka ka dambeysay dhashaan powerka ugu badan iyo awoodda ugu sareysana waxa iska leh xildhibaanada oo de madaxweynaha ay caydin karaan wasiirada ay caydin karaan waxay rabaan bay bedeli karaan shuruucda iyo hagitaanka iyaga iska leh dabagalkii iyo la xisaabtanka intaba sidaas darteed in xildhibaanadu ay almost muddadoodii 4 sano ay 3 sano mushaar la'aan la yihiin wax lagu sababeyn karaa ma jirto laakiin anigu priority-ga waxaan siinayaa inay xildhibaanadu noqdaan kuwa sumcad leh karaamo leh gaadiid leh hooy leh security leh maamulka Jubbaland maamulka anigu madaxda ka ah daan madax ka noqdo 28 bil kasta qof kasta xuquuqdiisa meesha loogu talagalay ugu dhacaysa marka ma noqonayso wax la waayo ama la raadiyo ama waxba dib u dhacay ama waxba isdaba maray ma aha ciidamadana runtii waxaan baarlamaanku isaga go'aaminaya mushaharkiisa isaga go'aaminaya intuu noqonayo shuruucda waddankooda isaga dejinaya waxa uu go'aamiyana haday tahay ama xuquuqdiisa mushahariga haday tahay sahay safarkiisa haday tahay caafimaadkooda marka xanuunsadaan iyaga xaasaskooda carruurtooda iyo haday tahay marka ay deegaamada tagayaan oo deegaamada xildhibaanku ma inuu xildhibaan u yahay kaliya inuu ahaado meesha joogo which ay Soomaaliya oo dhan haysato wax caqabad wada haysata ay tahay deegaano badan oo security xumo ka jirta ay jirta laakiin inta la tagi karo marka uu tagayo in uu qofkaasi yahay qof tagi kara oo wax ku beerin kara maamulka Jubbaland inta uu awoodi kara marka aniga qorshayga waxa weeye 28 bil kasta hadduu shaqaale dawladeed yahay hadduu baarlamaan yahay hadduu ciidan yahay iyo hadduu qof kale oo dawladda u shaqeeyahay 28 bil kasta waa inuu xuquuqdiisa helaa ciidamaduna runtii tixgelin gaar ah iyo barnaamijyo gaar ah oo aan hayn sida ay hadda yihiin in la gaaro Soomaaliya oo dhan iyo gaar ahaan anigu haddaan mas'uul ka noqdo Jubbaland qorshaha ii degan kaawada